waxaad rabtaa inaad u bedeshid dadka kugu xiran ee TikTok-gaaga inay noqdaan macaamiil wax ka iibsada service-kaaga ama product-kaaga. haddaba muuqaalka waxaan kugu bari doonaa qaabka aad u hagaajisan lahayd xayeysiinta TikTok-ga step by step. TikTok ads-na waa waxyaabaha inta badan loogu baahida badan yahay dhanka TikTok-ga, siba inta badan waxaa ugu baahi badan ganacsatada ay aad u isticmaalaan. TikTok ads-ka wuxuu kaaga baahan yahay inaad aqoon u leedahay sida loo rangareeyo. markaad sidaas aad ku heshid macaamiil badan adigoo wax lacag aysan kaa khasarin, annagoo mid dul istaagi doono step walba iyo sida loo sameeyo. markaasi waxaad awood u yeelan doontaa inaad hagaajisatid xayeysiiskaaga. markaasi qof kale intaad lacag ku siin lahayd waxaa fududaanaysa markaasi adiga inaad waxaaga dubatid laga bilaabo account setup ilaa pixel target. markaasi si qiimaha u yaraado natiijadana ay u korodho. dadka inta badan ku fiirsanayo markaasi inaan u bedelno dad wax ka iibsada ama service-kaaga ama markaasi waxaad bixinaysid soo codsada. stepka ugu horeeya waxa weeyaan accountigaaga TikTok-ga ee personalka ah waa inaad u bedeshaa accounti business. then markaad business u bedeshid waxaad tagaysaa browser-kaaga, waxaad ku qoraysaa ads.tiktok.com. kadib waxaad ka dooranaysaa ads manager. markaasi waxaad buuxinaysaa macluumaadka shirkadaada ama magaca shirkadaada macluumaadkeeda ayaad meesha ku buuxinaysaa. markaasi waxaa fududaanayso inaad cabirto natiijooyinka dadka soo booqday, dadka muuqaaladaada fiirsadeen, waxyaabahaas oo idil waxaad ka ogaanaysaa ads manager-ga. stepka labaad waxa weeyaan waa inaad dooratid ujeedkaaga. waa inaad dooratid ujeedada ama sababta gooliska ka dambeysa inaad xayeysiiska samaysid. waxaad u baahan tahay dad badan inuu gaaro, waxaad u baahan tahay traffic, waxaad u baahan tahay video views inay muuqaalkaaga dad badan inay daawadaan, waxaad u baahan tahay conversions, waxaad u baahan tahay leads. waxyaabahaas oo idil marka dhammaantood waa inaad fahansan tahay waxa markaasi aad u baahan tahay. markaas waxaa fududaanayso inaad dadkii exactly dadka u baahneed markaasi inaad target garaysid. markaas haddii aad u baahan tahay marka iibkaaga inuu kordho waa inaad dooratid calaamada conversions. haddii aad rabtid muuqaalkaaga inay dad badan arkaan, muuqaalka meesha soo dhigtay waxaad dooranaysaa video views ama waxaad dooranaysaa reach. stepka saddexaad waxa weeyaan budgeting. budgetkaaga ama miisaaniyadaada waa inaad fahansan tahay intaad ugu talagashay. qof walba markuu wax hagaajinayo waxaa u diyaarsan budget. marka budgetkaaga waa inaad fahansan tahay, waa inaad dejisaa marka budgetkaaga. inta badan waxaa lagu bilaabaa lacagaha ugu yar lagu bilaabo waxa weeyaan $5 ilaa $20. marka step by step marka aragtid natiijo fiican ama xayeysiiskaaga inuu hore u socdo, markaasi waxaa fududaanayso inaad lacagta kordhisid. laakiin marka ugu horeysa bilow aad tahay natiijadan aadan fahansanayn waxaad kala kulmi doontid lacag yar aad ku kharash garaysid ugu yaraan $5 maalinkii. marka $5 haddii lagu dhufto 7 days haddii lagu dhufto waxay noqonaysaa $27. marka $25 I mean waa lacag aad u yar, laakiin waxaad ogaanaysaa ugu dambeyn inaad kala kulmi doontid guul. waa inaad la soo degtaa TikTok pixels and track events, inaad ku xirtid TikTok-gaaga aad ku install garaysid TikTok pixels ama isticmaal Google Tag Manager. halkaas waxaa fududaanayso inaad ogaatid dadka soo booqday website-kaaga, page-kaaga, website-ka dadka soo booqday. inta badan dadka wax ka iibsaday website-kaada ka falceliyay ayaa markaas waxaa fududaanayso inaad si fudud ku ogaatid. dadka ku daawanaya daawadayaashaada waa inaad kala xulataa. waa inaad fahansan tahay dadka inay arkaan xayeysiiskaaga loo baahan yahay. marka dadkasi waxaa ku xulanaysaa da'dooda, dalka ay kasoo jeedaan. tusaalahaan waxaad dhahaysaa xayeysiiskayga ha laga arko keliya Nairobi. waxaad kaloo samayn kartaa xayeysiiskayga laga arko Kenya ayaad dhihi kartaa. waxaad kaloo dhihi kartaa xayeysiiskayga Muqdisho bas laga arko. marka mar waliba adiga ayaa xukumaysa xayeysiiskaaga, meesha aad ugu talagasho ayaa laga arkaa. algorithm-ka ama TikTok-ga qaabku u shaqeeyo, markaas waxaa fududaanayso inuu ogaado dadkii aad u baahneed. markaad dooratid wuxuu raadinayaa markaasi product-ga ama muuqaalkaaga wuxuu ku raadinayaa dadkii exactly dadkaad dooratay, markaasi ayuu u geenayaa. kadibna waxaa fududaanaysa markaasi inaad macaamiil heshid ama waxyaabihii aad u baahneed ama hadafka ka lahayd xayeysiiskaaga inaad gaartid. hal-abuurkaaga ayaa go'aaminaya xayeysiiskaaga inuu meel gaaro. tani waxa weeyaan xayeysiiskaaga waxay ku xiran tahay inta badan qaabka aad usoo bandhigtid muuqaalka ama waxyaabaha dadka aad la wadaagtid. haddii uu noqdo muuqaalkaasi mid soo jiidasho leh, waxaa fududaanaysa markaasi dadka inay jeclaystaan ayna kula soo xiriiraan. ilbiriqsiyada ugu horeeya oo xayeysiiskaaga waa inuu noqdaa mid dadka ay dul istaagi karaan. marka xayeysiiskaaga sidaas uu dadka uga soo horbaxo waxaa loo baahan yahay markaasi qofkii inuu istaago, oo markaasi waxaa ka dhigaya inuu istaago inta badan indhaha dadka. waxa weeyaan marka wax ugu horeeya ay qabtaan oo ay jeclaystaan ay dul istaagaan. laakiin xayeysiiskaaga haddii markaad soo diyaarinaysay aadan si wacan usoo diyaarin,
markaasi waxaa adkaanayso markaasi qofka dadka inay dul istaagaan. marka mar waliba inaad iska qurxisaa design-ka ama hab curinta qaabkaad usoo curisay muuqaalka ama qaabka dadka ugu talagashay inaad u gaarsiisid waa inaad u samaysaa hookup. xayeysiiska waa inuu noqdaa mid cad oo kooban oo hadaladana waa inaad soo koobtaa, uusan ahaanin mid aad u dheer oo dadkii ay ku caajisayaan. ha ilaawin CTA shop now call to action ama isticmaal motion graphics. motion graphics waxyaabaha dhaqaaqa ee aadka lagu isticmaalo xayeysiisyada. haddii aad isticmaashid markaasi waxaa fududaanaysa fariintaada dadka inay gaarto. stepka doodax weyn xayeysiiskaaga markaad fasaxdid waa inaad la socotaa tilaabo 74 saacadood kadib waa inaad eegtaa oo aad la socotid xayeysiiskaaga meesha uu maraayo, inta dad ay kusoo booqdeen, inta dad ay codsatay inay kula soo xiriiraan, inaad la xiriirtid. markaas waxaa fududaanayso inaad retargeting samaysid. natiijo fiican haddii aad kala kulantid xayeysiiskaaga ugu horeeyey markaasi inaad ku dartid lacagta oo aad ku kordhisid. haddii ahayd $5 inaad ka dhigtid $20. xayeysiiskaaga haddii uu noqdo dad badan ayaa ku daawadeen at the same time still dad waxba kaama iibsan, laga yaabaa in xayeysiiska qaabka aad u samaysay inay wax ka qaldan yihiin, qaabka aad u diyaarisay ama design-ka inay wax ka qaldan yihiin, laga yaabaa qaabka aad usoo bandhigtay qofka markaasi hadlayo hadaladiisa inay isku toosnayn, laga yaabaa in markaasi message-ka aad gudbinaysid aadan si fiican u fahansanayn. markaas waxaa lagaaga baahan yahay inaad dib u laabatid message-ka gudbinaysid. markaas waxaa fududaanayso in dadka ay ku fahmaan. waa inaad ka hadashid problemka haysto, xalkoodana waa inaad keentid. mar waliba problemka xalkiisa aad keenaysid waa mar waliba dadka ay kugu soo xirmayaan. ku mashquulin xayeysiiskaaga 2 daqiiqo kadib ama 1 saac kadib inaad ku mashquusho oo dhahdid maxaa xayeysiiskay lama fiirsanayo. waa inaad waqti siisaa xayeysiiskaaga 2 beri ilaa 3 beri. waa inaad waqti siisaa oo dulqaad ay yeelatid. haddii aad rabtid inaan kaa caawiyo scriptiga ugu horeeya xayeysiinta ama qaabka aad u samayn lahayd ama qaabka aad u diyaarin lahayd xayeysiiska ugu horeeya, ha noqdo muuqaal aad duubtid ama ha noqdo voice over oo codkaaga isticmaalaysid ama ha noqdo qaabka aad u samayn lahayd xayeysiin ayu nooc, xagga hoose ee commentiga igula wadaag. waxaan kaa caawin doonaa qaabka aad u samayn lahayd xayeysiiskaaga ugu horeeya. waxaan rajeynaa muuqaalka xun inaad ka faa'iiday. ha iilaanina subscribe ii saarto si mar waliba muuqaaladan soo geliyo ay ku soo gaaraan. mahadsanid.